turjumaada borotokoolka ama maamuuska waxa uu kulan ka yeeshay si uu soo diyaariyo qaraarka maanta idin hor yaalla oo si fiican uga baaraandegay waxaanan idin akhriyayaa qaraarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha shacabka qaraarka golaha shacabka hab maamuuska borotokoolka xeerka lagu aasaasay midowga Afrika ee khuseeya midowga baarlamaanada Afrika golaha shacabku markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya oo xeerinaya in heshiisyada caalamiga ah ee uu soo jeediyo golaha shacabku golaha wasiiradu kadibna loo baahan yahay in uu ansixiyo golaha shacabku markuu arkay qodobka 2 faqradiisa B ee xeeroosaadka golaha shacabka oo xeerinaya in golaha shacabku ansixiyo heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada ay xukuumaddu la gasho dawlado ama dhinacyo kale markuu arkay go'aanka golaha wasiirada lambar wa jiitin eber 69 jiitin eber 5 jiitin 2018 ee ku taariikhaysan 6 bishii 5aad 2018 kuna saabsan go'aan gole ansixinta hab maamuuska xeerka lagu aasaasay midowga Afrika ee khuseeya midowga baarlamaanada Afrika markuu arkay warqadda ra'iisul wasaaraha number xeer wa jiitin eber 3 18 jiitin eber 5 jiitin 2018 ee ku taariikhaysan 6 bisha 5aad 2018 kuna saabsan soo gudbin hab maamuuska xeerka lagu aasaasay midowga Afrika ee khuseeya midowga baarlamaanada Afrika markuu dhigtay hab maamuuska ama borotokoolka xeerka lagu aasaasay midowga Afrika ee khuseeya baarlamaanada Afrika oo lagu ogolaaday kalfadhiga saddexaad ee 27kii June 2014 ee ka dhacay magaalada Malabo Equatorial Guinea markuu darsay baaqii sirta ee lagu ansixiyay kalfadhigii afraad ee aan caadiga ahayn oo ay yeesheen madaxda dalalka iyo xukuumadaha lagu qabtay sirta Liibiya bishii 9aad 1999 lagu aasaasay midowga Afrika laguna baaqay in si degdeg ah lagu dhiso midowga baarlamaanada Afrika ugu dambeyn sanadii 2000 markuu arkay kulankii 36aad ee caadiga ahaa ee isugu yimaadeen madaxda dalalka iyo xukuumadaha Afrika kana dhacay Lom dalka Togo 10kii ilaa 12kii Luulyo 2000 laguna ansixiyay sharciga lagu aasaasay midowga Afrika kaasoo si cad u muujinaya aragti guud ee Afrika midaysan oo xoog leh markuu tixgeliyay qodobka 5aad iyo 17aad ee heshiiska lagu dhisay midowga Afrika laguna aasaasay midowga baarlamaanada Afrika oo ah hay'ad kamid ah ururka midowga baarlamaanka Afrika oo hawsheeda awoodaheeda iyo qaab dhismeedkeedaba lagu tilmaamay in lagu qeexi doono hab maamuuskan markuu ku qancay muhiimadda midowga baarlamaanada Afrika uu u leeyahay dadyowga Afrika si ay u helaan madal ay kaga qayb qaataan arrimaha la xiriira horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga Afrika kagana wada xaajoodaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha soo waajaha qaaradda iyadoo la higsanayo himilada ah Afrika midaysan oo xoog leh sidaa daraadeed kalfadhiga saddexaad kulankiisa 7aad 7 bisha 5aad 2018 oo ay goobjoog yihiin sida la inoo sheegay xildhibaano 140 ah wuxuu hab maamuuska borotokoolka xeerkan lagu aasaasay laga rajaynayaa inuu ku ansixiyo sida aanu codsanayno qodobkan waxaa la dhameystiri doonaa marka goluhu go'aanka gaadho ka boodaya heshiiska waxaa loo dirayaa saxiixa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu ugu meel mariyo si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa ee dastuurka federaalka Soomaaliya
looguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka labadiisa nuqul ee ah luqadda Soomaaliga iyo luqadda Ingiriisiga ah. Qaraarkan waxaa loo gudbin doonaa gudoomiyaha ururka Midowga Afrika si loo diiwaan geliyo looguna kaydiyo ama deposit loogu sameeyo ansixinta dowladda Soomaaliya ee habmaamuuskan. wasaaradda arrimaha dibadda oo kaashanaysa xubnaha golaha ku matala midowga baarlamaanada Afrika waxaa la farayaa in si mudaysan ay warbixino tifatiran oo ku saabsan hadba heerka uu marayo hirgelinta habmaamuuskan borotokoolkan ay u keenaan golaha shacabka. wabillahi tawfiiq wa mahadsantihiin.